أخياري كسر دوادا جرنالست كان كلا عندي شوي عتي ميديا فضلا أخبار تنسيشر كريا مانتو أن أي بشو أي تهاي سدح يتوان كبش مارج لبدكون لبي لباتن قبنا إن ما لها واحد كم قل الدونتان قضبة يسوق جرو قوة دلكا قوة دي بدأ قوة دلكا هدان وكهر مرنا إن حجها لو كل سوين هي صاب حياة وحي شيء يعني إن مجال بيدبو حرونتا قبل كباي ahna xarunta ama magaala madaxda labaad ee koonfur galbeed waxa laga sheegayaa in Abdicasiis lafta gareen xildhibaanada uu soo saaray 69 ka ah majority-gooda inta ugu badan ilaa 60 xubnood ba aan dhahno iyo inuu xagga ugu kulmin doono farmaajo kadib markii farmaajo uu ka codsaday ma aragta halka si uu farmaajo u bilaabo ololihiisa doorashada sidaas la mid ah waxa magaalada Baydhabo lagu martiqaadi doonaa oo lagu soo dhaweyn doonaa oo haddii la ku roon yahay harimo sharafeed lagu sameyn doonaa xildhibaanada inta ugu badan ee golaha ma aragta haddii la ku roon yahay ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya ama dir waqooyi aan dhahan kuwaas oo haddii la ku roon yahay halka markay tagaana xuduudda iyo haddii la ku roon ciidanka farmaajo halka lagu soo bandhigi doono ayadoo ay tahay xarunta ololaha halka waxa weeyaan inaan ogaano akhbaarta ah xarunta ololaha ee farmaajo madaxweyne farmaajo waxay ma aragtaa haddii alla ku rooy ay noqon doontaa magaalada Baydhabo ayay xarun u noqon doontaa xarunta ololaha ee farmaajo haddaanu ogeyn sanadkii 2017 ama dabayaaqadii 2016 in farmaajo uu ka soo ololeeyay ololihiisa uu ku qabsaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkan hadeertaan waxa la rajaynayaa magaalada inay ma aragtaa haddii alla ku rooy ay ka dhigto meesha la yiraahdo Baydhabo maadaama ay Muqdisho ay saxmadeedu ay badan tahay asagoo waliba ku ololeyn doona ayada naftirkeeda waxa ololo ah in uu farmaajo uu yiraahdo waxaan ma aragtaa ololahayga ka sameystay ama ku soo bandhigayaaba magaalo Soomaaliyeed ayaan ku qabsanayaa meesha dal shisheeye aan ku qabsan lahaa isagoo halkaas uga socda ragga qaarkood ay ku sameysan doonaan dabcan ma aragtaa wadanka dibadiisa sida Nairobi oo kale in badan la tagi doono sidaas la mid ah ragga qaarkood magaalo madaxyo uma diyaarsana salahan midowga musharaxiinta beelasha hawiye ragga ku magacaaban halkan jooga ma aragtaa mar walba isku dayay haddii la kooro u sharaxan ma aragtaa sanadka ama labada sanaba halka hotel jazeera fadhigooda u ahaa waxa ma aragtaa xarun dabcan ma haystaan xarun ay ku ololayaan oo olole ay ka sameeyaan tusaale ahaan waati aan ogeyn in ma aragtaa siciidan uu halkan yimid bisheedii kale oo bishii Maarch 2021 isagoo hub culus uu ka soo dejiyay halka garoonka aadan cadde international airport waa garoonka caalamiga ee Soomaaliya oo dhan ay leedahay isagoo raba inuu sumcad dilo dabcan loona wareejiyo garoomada ma aragtaa majarteenku ay leeyihiin iyagoo aan iska fiirin ay hubkii qaateen dabcan magaaladiina ma aragtaa waatay dab ku shideen dabcan waxay doonaan ha u bixiyeen iyagu asa ahaatee isagu watuusan ma aragtaa uga dhaartay حتى ما أنا one single seat حتى حمين برلمان أقل كسرها هاتو قلها شعب كهاتو منا إنه سوق درن رجل مشان ما ركت أسكو بيش هاي هالكن جوي إن أيوكم مركز هالكن وحوق الله إنه ربنا إنا افتيمين تاسدير شكلها دير وحنا نقص وده جلون إن رجع مشرحين تاع هوتيل الجزيرة في الجودة هذا كلا يعاي كلا إرنوبي إن يسن هيسن مجاله أي كسر أوليان سيدا فرماجو وقص أولين دونه مجاله Baydhabo ما ركت دول كورون يعني من كل يرى هذا ميلان waxa marka aan halka uga soconnaa farmaajo dhowr arrimood halka uu ka damacsan yahay koow inuu ma aragtaa uu ku soo bandhigo inuu ma aragtaa uu magaalo Soomaaliyeed uu ku soo bandhigayo ma aragtaa ololihiisa isagoo ka soo wareejiyay dal shisheeye labo isagoo xuduudiisa ku soo bandhigaya qiyaas ahaan 60 xubnood ayaa la rajaynayaa maarta inuu ka helo nimanka la yiraahdo koonfur galbeed sidaas la mid ah 57 xubnood uu ka maarta dirta waqooyi inuu ka heli doono ilaa iyo maarta 38 xubnood dabcan markii labada la isku geeyo waxay noqonaysaa ilaa iyo 100 xubnood oo dhadhow ama 100 xubnood aan ku tilmaamay hadii dabcan aan laga dheereenba waxa kale oo jira ayadana xarunta maarta ololaha dabcan inkastoo ay center u tahay ama xarun u tahay in meeshaas kaliya laga soo ololeeyo haddana waxa dhici doonta inuu ka soo ololeeyo magaalooyinka Jowhar beledweyne dabcan wuxuu ku hormari doonaa magaalada beledweyne
waxaa kaloo jiri doona inuu ka soo ololeeyo magaalada Dhuusamareeb dabcan waa u xiran tahay ciidan xoog la u jooga Ethiopiankii baa jooga ciidamadii Haramcad iyo Gorgor baa jooga waxyaalo badan xarumahaas fara badan ayuu heli doonaa oo fursad u heli doonaa inuu ka soo ololeeyo taasuna waxa weeyaan ilaahan ku kalsoonahay oo ka helayno ayaa waxay sheegayaan intaas raacinayaan in maaragtaa halka markii ololuhu ka dhaco in maaragtaa rag kalena ololahoodii dabcan ay iska shiiqi doonaan halkaana uu ka qaadan doono maaragtaa duwal ku runyaa meel cidla waxa xusid mudan marka oo hoos ka xariiqayna hadaan nahay journalistka Caynta Shawicati Media inaanan maaragtaa xisbiga farmaajo nabadina inaanan ka tirsaneen hasa ahaatee xaqiiqooyinka iyo waxaan helno oo maaragtaa xoga aan rabnaa in maaragtaa inaan la wadaagno asxaabteena labada janaal ku xiran waxa kale maaragtaa iyadana xusid mudan oo qubanayna maanta aan ku soo darayna waxa jira in lagu doortay maanta ninka la yiraahdo Odowa oo ah xubintii saddexaad ee dumujudiid ka helaan galmudug waa xubintii saddexaad ama xubintii baarlamaanka saddexaad ee nimanka la yiraahdo dumujudiid ee ka helaan maarta galmudug dabcan waa taa waxa weeyaan waa xogaha dabcan waxa ogtiin laba xubnood oo hore inay ka soo helaan xubnaha farmaajo kula tartamaya galmudug waxa kamid ah Xasan Cali Khayr oo ka helay kuraas fara badan ka helay aqalka sare haday tahay golaha shacabka haday tahay ilaa iyo 5 6 7 xubnood waa la gaarsiin karaa inta Xasan Cali Khayr uu helay master 7 minutes ninka loo yaqaano waxa kala asaguna xubno helay ninka la yiraahdo Cabdikariin Guuleed waxa laakiin maaragtaan iyada halkan aan sheegayna nimankii maaragtaa odow ninka la yiraahdo Roble baahan ninka loo yaqaano ra'iisul wasaaraha ku magacaaban dabcan de maaragtaa ku fashilmay kuna habraday xilkii loo dhiibay maaragtaa xubnihii asxaabtiisa ahayd oo maaragtaa ololaha duwal ku xafiiskiisa ka shaqeynayay ama xukuumadda u dhawaa sida wasiirka gaashaandhigga ninka ku magacaaban master madaxa ay furan Mr TikToker ninka loo yaqaano odowaagi idaacadii maaragtaa qabiyaaladeeyay u xiray maaragtaa ninka in adeerkiisa madaxweynihii qarankana u diiday waxa inta aan soo dhaxgelinayna madaxweynaha ay Uganda Yoweri Museveni ninka la yiraahdo kaliitaliyaha haysta ayaa la weydiiyay iyadoo mar la wareysanayay VO-da wareysanayso usbuucii hore ayaa tiri maxaa kula yaaban waxa la yaaban buu yiri madaxweynaha dal ee markaa fadhiya xaruntii maaragtaa dalka looga arrimeeyay codkiisa iyo hadalkiisa loo diiday in la mariyo TV-ga qarankii warfaafinta qaranka sida TV-ga qaranka oo Somali National TV-ga telefishana Sona oo ah wakaalada wararka Soomaaliyeed sidaas la mid ah haduu la ku reeyahay codka maaragtaa haduu la ku qaranka oo raadiyo Muqdisho u taagan yihiin taas ayuu ku tilmaamay inuu maaragtaa haduu la ku reeyahay ninka Yoweri Museveni man la wareystay inuu maaragtaa haduu la ku reeyahay oo arinta kaliya la yaabay inay taas tahay saate sheekadeena markaan soo laabano Roble baahane ragii uu maaragtaa haduu la ku reeyahay oo hawsha la waday ku hareereysnaa boqolkiiba 99 waa haleeli waayeen dabcan waxa kamid ah muuday oo in badan qartana oo Faad Yaasiin la dagaalsana markii xilka laga qaaday xataa oo Allah dhinac uga jiray taa ayadoo cusub maanta wateen ogeyn in garoonka laga qabtay oo laga soo celiyay waxaan ognahay cadaalad ugu dambeeyay waxa maantadan la doortay kursiga ninka la yiraahdo Mr TikToker oo madaxa ay furan ninka TikTok-ga wasaaradda gaashaandhigga dhan lagu aaminay TikTok-ga dhex fadhiyay dabcan de gabdhihiiba Soomaaliyeed ama niikadiiba ku cariiriyay aan dhihi karnaa ayaa maarta asaga maanta kursigiisa lagu doortay halka de dabcan xataa isku madayn asagu inuu xataa unta garoonkii tago u yiraahdo garoonkii baa laga celiyay kaliya xataa isku muusandayn inuu maaragta duwal ku roon yahay oo maarta u tartamay iska badaabe Roble baahane iyo asxaabtii ku wareegsaneedba maaragta kursiba ma soo helin dabcan dabcan cid kale maarta dagaal wuxuu kula jiraaba mar hadii aad ragii adiga asxaabtaada ahayd kursiba u weysay cid kale oo kursi aad kula dagaalami kartaa ma jirto akhyaaray mar kale waxaan leenahay sii share gareeya haddaad naga daawanaysaan page-keena Caati Media follow iyo like iyo link ka waayin haddii kalena oo YouTube-ka naga daawanaysaanna labada YouTube ee Caynta Shawicati Media fadlan sii share gareeya asxaabay